solo Somali Radio أداو أبان كاغا محد علمنا برنامجyada xiisaha badan ee taariikhiga ah ee khibradda aad u leedahay dalkan Ireland ee aad Somali Radio aad siiso mar labaad soo dhawow barnaamijka taariikhiga ah ee aad khabiirka aad ku tahay waxaan maanta aan doonaynaa shalay wadigii nooga warramay waxay tahay waxa loo yaqaano Easter days inay tahay maalmo xagga diinaha ah haddana waxaan la kulannay maanta waxa la yidhahdaa Easter Rising ingiriiska ku yidhahdaan oo dee waddankan laga aaminsan yahay marka waxa isbahan la'aan baa labadaas cisho isku xigta qofka ay ku keenaysaa ma Easterkii diinta ahaa mise waa Easterkan kale oo la mid ah waddankan uu aaminsan yahay marka bal waxaan jeclahay inaad faham guud aad naga siiso bal waxay kala duwan yihiin Easter iyo Easter Rising kan maalintii ka xigtay haddana loo tababagayo waddankan Ireland haddaan si kooban u sharaxo arrintan Easter Rising-ka waxa la yiraahdaa wax kacdoonkii Irish ay ka gadoodeen boqortooyada Ingiriiska oo muddo badan cabdicasiis waddankan maamuleysay waxaana la yiraahdaa wuxuu bilaabmay 24 Abriil waxa uu socday kacdoonkaasi 6 cisho waxaana ciidamada Ingiriiska oo waqtigaasi dee awood weyn lahaa dagaalkii koowaad adduunka ku jiray ay markaasi kacdoonkaasi ay cagta mariyeen iyagoo u geystay dhibaatooyin xoog leh oo markii dambe kaliftay in dhimbishaalkii ay cid walba gaadho wuxuuna ahaa wax ay soo qaban qaabiyeen dad Irish oo u badan macallimiin u badan dad alla mas'alaad maxalli aqoonyaha u badan dad qabiyaha luqadda Irish ku qabiya waxayna cilaamiyeen maalin qura oo bal lagu waabrisay iyagoo leh Irishku waa dal madax bannaan oo ka madax bannaan boqortooyada Ingiriiska oo ay soo saareen baaqaasi oo ilaa maanta meel kuli kasta ay kusoo inay marka waqtiga bilaabma sanadkee buu bilaabmay Easter Rising bilaabmay waxay ahayd 1916 xilli baan dhamaaday waxa uu dhablix cisho horta socday dagaalkaasi oo sidii ku bilaabantay arrintu markay nimankaasi is abaabuleen ay ciidan madaniya ay isku keeneen oo ay ciidankaasi ay soo galeen meeshan Chicago Boosta ayaa ciidankaasi iyo hubkoodii oo wata ayaa halka galay meelo kalena waa kacdoonku waa ka bilaabmay marka dadka Irish waqtigaasi umay diyaar garoobin kacdoon inta la eegay garoodi maadaama boqortooyada Ingiriiska aad u xoog weynay wixii waxaa jirtay in Jarmalka ay taageero ka heleen oo markab alaan huba oo alaan salaam ku soo xidhay Oxford Ingiriiska ka war helay la joojiyay dabeetana markaasi ay rasaastu bilaabmatay oo meesha qabsadeen markii dambena ciidamadii militariga ahaa ee Ingiriiska oo aad u awood badnaa ay nimankii halkaas ku jabiyeen waxa cajiib ahayd cabdicasiis in markii nimankii lagu xoog roonaaday oo alaam salaam maxamed ay laga awood badiyay inay oo dadkii Irishka ay dhinteen dad badan meesha ku dhaawacmeen inay garteen inay isdiibaan iyagoo u danaynaya shacabkooda oo yiraahdeen anagu waan joojin waxaan isdiibaynaa laakiin Ingiriiska oo ah dawlad guuna waxay jiraan hubka halka kaga timaadaan dabadoo ay diiday waxay yiraahdeen anagu bahdilaad bal aragna taas anagu hubkayagii gacmaha ku sidayna oo alaam salaam dhaawac ayaga wadana ka soo baxayna dabeetana meel garasho hotel la yiraahdo ayay ku dhigeen dabeetana way soo wareegeen beertan oo alaam salaam xalaal ku taala oo ay boqortooda waagi dhawid soo boqotay ayay yimaadeen halkaas lagu xareeyay saddex cisho lagu hayay waa la kala saaray 16 kamid dabadii alaam salaam ee halgankooday iyaga waa la dilay oo kilman meel la yiraahdo oo alaam xabsi oo dadka lagu leeyin jiray lagu leeyay dabeetana 16 markii la dilay intii kale soo hadheen la xabisay jeer xun la mariyay ayaa dadkii Irishka markaasi aad iyo aad u kaceen oo ay dhimbishaalkii meel walba gaadhay waxay markaa noqotay in boqortooyada Ingiriiska cabdicasiis oo markaa halkan qofka Irishka laga doorto wuxuu tagi jiray baarlamaanka ay tagi jiray Westminsterka oo waddankan taariikhda uu leeyahay ku 800 bay alaams Irishka iyo alaams iyo ninka la yiraahdo meesha la Ingiriiska ay midoobeen markaa ninka soo MP markaa laga doorto uu tagi jiray Westminster dabeetana waxa dhacay markaa in dagaalkii markuu xoog bilaawday doorasho ay dhacday ururkan Sinn oo inta aragto la asaasay 1905 ba waqtiga doorashadii ugu horeysay ku guuleystay markii doorashadii ku guuleysteen xubnihii baarlamaanka intii u badnaa qaateen ay waxay diideen markaasi inay xubnihii baarlamaanka ay tagaan London oo ay boqortooyada gaartaan dabeetana halkan ay ku qabsadeen shirkii ugu horeysay baarlamaanka Ingiriiska Irishku halkan oo ka dhacay dabeetana waxa markaasi dhacday in dawladda Irish iyo alaamsa dawladda Ingiriisku ay noqdaan markaasi iyadoo wali la aqoonsan dawladda haddana laba dawladood oo isku hoosira oo laakiin isdiidan dabeetana halgankii markaa waxa israacay markaa kii siyaasadda iyo kii alaamsa hubka oo markaasi muddo uu socday ilaa aakhirkii Ingiriisku 1900
okay waan fahanay in amaanta ay tahay maalin istiraaysi maalin kacdoon oo ah loo kacayo kacdoon ah halkii wadankan xorriyadu ku qaadanayay inay tahay marka dadku imika waxaan arkaynaa qawaadi iyo boorar badan oo ku qoran tahay 2016 waxa weeyaan waa maalin taariikhi ah waa 100 sano kadib weeyaan kacdoonka wadanka ka dhacay marka waxa weeyaan marka maadaama 100 sano inta laga joogo taariikhda maalintii kacdoonka uu bilaabmay dad badan baa waxay isku qaldaan taariikhda kacdoonka bilaabmay iyo taariikhda ay xorriyadda ay qaateen ama dawladnimadooda ay wadankan lagu dhawaaqay waqtigay tahay marka Daawudow waqtigee ayaa wadankan dawladnimadiisa si official ah loo aqoonsaday aan ahayn 1916 ka kacdoon bilaabay horta marka kacdoonku bilaabmay la soo afjaray kacdoonkii dawladda Ingiriisku markaasi waxay u arkaysay dhowr qof oo alam saalam hawshan wada ay uma arkaynin shacabkooda inay kacayaan dabadna shacabkooda markay kaceen ka soo warno in dawladdii alam saalam maxamed ay diido Irishku inay Ingiriiska tagaan baa marka waxa bilaabmay dagaalo hoose oo ka dhacay oo gurileyn baa bilaabatay in marka dadkii la shaqeynay Ingiriiska la laayo marka Ingiriiskii isagoo marka cabsi weyn ka qaba Jarmalkii inuu halkan ka soo galo oo dagaalkii weynii koowaad uu dhacay ayaa waxa dhacay marka Ingiriisku waxay khasab ku noqotay marka inuu heshiis la galo dawladdii marka waqtiga dadka halgankooday oo ay alam saalam maxamed ay kowka heshiifeen isbigi loo jiray marka 1919 ayaa la yiraahdo waqtigaas ay xabad joojinta bilaabantay iyo nabad iyo waan marka 1920 ayaa Ingiriisku markaasi go'aansaday in uu alam saalam maxamed ay qayb kamid ah public file lama qeybay 12 gobol qayb kamid ah oo 60 gobol ah Ingiriiska ay sii xoriyay waliba waxa cajiib ah ninkii heshiiska saxay ee 60 gobol soo qaaday ee 60 gobol qiim maanta uu saxay Michael Collins baa lagu jiray oo isagu garabkii alam saalam maxamed ay wuxuu ahaa wadada lagu magacdaray koob baa lagu dili doonaa dagaal soo qaybay wadanka ka dhigay doonaa ninkaas maanta uu saxay waxa saxaya heshiiska markuu saxay waxa saxaya dhimashada inuu saxaya tiibana dab noqotay oo runtii dadku Irishkii wada socday way kala jabeen okay way inagoo barnaamijyadeena go'go'san doona kolba in aan soo noqdo maalinta xorriyadda wadanka lagu qaatay maxaa maalintaasi ku iskeeyo maalinta ba soo waa maxaa goorma runtii xusk weyn oo loo sameeyaa wadankan ma jirto maalinta xorriyadda waayo dadka qaar waxay aaminsan yihiin waa halku dagaalka sokeeye ka bilaabmay ee jabadii ka kala jabtay ee qaar aaminsan yihiin dalkii inuu qayb qaqan yahay xus weyn looma sameeyo oo dagaal sokeeye dhacay 3 sano socday inuu qaal lagu dilay hogaamiyaashii alam saahalganka arinta ugu muhiimsan ee waqtiga xaadirka loo xusi waayna waa taas oo wadanka qayb maqan mana laha maalin weyn oo alam xusa waxa kale oo muhiim ah su'aal weydiisa jirto ahayd waxa ka soo boorar badan waxa ka sameeyo waxa lagu qoray 2016 iyo 1916 waxa loo xusayaa waa 100 sanadood ay jamhuuriyadda Ireland jirsatay oo xor ay yihiin waxaana arrinta cajiibka halku dhigida meelaha marka arkayso waxa kamid ah arbidashadeedu waa farxadda caruurteeda oo iyagu runtii waxay u dhimanayeen waxa koow ka ahaa in ay dadkana helaan maalin qura in calan ay leeyihiin xora oo alam saalam maxamed nabada oo ay luqadoodii iyo afkoodii dhaqankooda ay ku ilaashan karaan ay helaan qortooyada Ingiriiskina hamigeedii uu ahaa in aan wadankan uu leeyahay Irish aanu abid jirin oo luqadii waxba ka masaxday sida Scottish iyo Welsh doonaysan ka dhigto laakiin tii way soo tagelin waxaana ku tusaysaa inay Irish leeyihiin dad adag oo halgan leh oo dhaqan leh oo alam saalam maxamed aan la liicin karin waqti kasta qaataba ilaa ay qaatay 700 oo sano kadib inay maanta qarniga marka maanta oo kale maadaama 100 sano guuro laga joogo xus noocee baa dhacay kulantay maanta oo kale horta ka wadwanaanaya xusaskii hore ee iska caadiga ah aan xusin يا دوانيا waxaan soo aragnay alam saalam maxamed hawl badan oo diyaar garoow haday noqoto alam saboorkaas sheegayso haday noqoto daabacaado la daabacayo buugtii haday noqoto ragii halganka oo meel walba lagu alam saalam maxamed in sharaxay sida oo kale dawladdu qaabo weyn bay ku jirtaa oo runtii muddo socday oo inay maanta madaxweynaha iyo cid waliba ay runtii dareemi karaan taariikhda weyn sidoo kale waxa jirta in taariikhdii tiifiyada iyo meel laga sheegayo meesha jirta aad dareemayso in wadanku soo maray dhibaato xoog leh oo dadkii taariikhda dib loo xusinayo iyadoo ay ku tusoo in dadka halganka soo galay
inaan cilad looga tegin runtii noqoto. Okay, barnaamijkan mid la mid ah intuu la kulmi doono oo uu Daawud iyo Safir Daawud inoo uga warrami doono maalintan qaaliga ah ee Easter-ka waxaan kaaga tegaynaa Daawud sidaa iyo nabadgelyo barnaamijkan ku dambeeyay kan oo kulmi doono.